sheekadu waxay ku bilaabanaysaa anigoo ah Ash wiil aad ugu fiican xisaabta maalin ayaan saarnaa saqafka anigiyo dhowr wiil oo darbiyada ku buufinaya rinji midaba leh si lama filaan ah boolis ayaa goobta yimid wiilasha kale isla markiiba way carareen aniguse waxba ma aanan ogeyn sababtoo ah waxaan dhageysanayay music anigoo headphone ii xiran markii booliska ii yeereen ayaa si lama filaan ah u argagaxay waxaan gasacad rinji ah ku tuuray dhankooda kadibna fursadaas ayaan ka faa'iidaystay waanan cararay waxaan ku booday saqaf ilaa saqafka kale ayadoo booliskana si dhow ii daba socdeen intaan baxsanayay ayaan arkay guri dabaq oo iga hooseeya inkastoo halis ahayd haddana waxaan go'aansaday inaan u boodo intii aan hawada ku jiray ayuu telefoonkayga iga dhacay wuuna lumay markii aan degayna waxaa si degdeg ah u galay guriga gudahana waxaa joogay laba haweenay oo waayil ah oona si degan u cunayay cuntadooda wax yar kadibna booliska ayaa guriga soo galay laakiin waxaan helay marin qarsoon oo aan kaga baxsado taasoo ka dhigtay inay i waayaan marinkaasi wuxuu i geeyey supermarket halkaasi waxaa ka shaqaysanaysay hooyaday waxaan qaatay casiir kadibna waan u tegey hooyaday waxay ii sheegtay inay maalintaas booqatay dugsigayga markii aan taas maqlayna waan walwalay sababtoo ah casharo badan ayaa ka maqnaa laakiin waxay isla markiiba ii sheegtay war aanan filaynin waxaan ku guulaystay tartanka qaranka ee xisaabta macalinkayga MR Kalmuusig ayaa ii soo jeediyey deeq waxbarasho oo gaar ah waxaa sidoo kale la ii doortay deeqdaas hooyaday aad ay ugu farxday waan ii habsiisay laakiin farxadaasi waxaa la socotay hal shuruud waa inaan degaa dugsi hooy leh halkaas oo aan mar dambe casharada ka maqnaan karin markii aan eegay buugyaraha dugsiga waxaan is iri sideen ugu noolaan karaa meel sidan oo kale ah dhanka kale waxaa jiray wiil la yiraahdo Wilhelm balse qof walba wuxuu uga yeeraa wiil aabihii Hilman Saurliij wuxuu ahaa ganacsade caan ku ah shukulaatada wiili wuxuu dugsiga ku yimid diyaaradda gaarka ah ee aabihii ilaalihiisa George ayaa geeyay qolka lambarkiisu yahay 53 markii uu albaabka furay ayuu la yaabay inuu i arkay anigoo horey ugu jiray qolka wuxuu filayay inuu kaligiisa qol yeesho aad ay ugu xanaaqay inuu qolka ila wadaago wuxuuna bilaabay inuu si xun ila dhaqmo George wuxuu isku dayay inuu dejiyo wuxuu ballan qaaday inuu mar walba ugu soo diri doono waxyaabaha uu ugu jecel yahay adeega degdega ah intii uusan bixin wuxuu igu codsaday inaan u dulqaato wiil markii uu George wiil ugu yeeray naaneysta butucow waan qoslay waxaana bilaabay inaan ku maadsado naaneystaas wiil isagana halkii uu buugtiisa diyaarin lahaa wuxuu si taxaddar leh u kala hagaajinayay shukulaatooyinkiisa muddo kadib aniga iyo wiil waxaan u baxnay banaanka waxaan aragnay 3 arday oo waaweyn oo shaqadii guriga ka qaadanayay wiil yar oo la yiraahdo Carl arintaasna aad ayaan uga xanaaqay waxaan weydiiyay haddii ay awoodin inay shaqadooda ayaga qabsadaan isla markiiba way hareereeyeen midkood wuxuu boorsadeeda kala baxay weelkamaankeygii waxayna bilaabeen inay igu jeesjeesaan ugu dambeyn waan xanaaqay waxaan feer xoogan caloosha kaga dhuftay mid ka mid wiilasha kadibna dhulka ayaan ku qabtay isla markaas waxaa timid gabar lagu magacaabo Gabi waxay igu canaanantay dagaalka aniguna waxaan dib ula soo noqday weelkamaankeygii waxaan u sheegay inay arrinta soo faragelin isla markaas waxaa timid maamulaha dugsiga Mrs Parillo waxay markiiba joojisay dagaalka waxayna amartay ardaydii kale inay goobta ka baxaan kadib Mr Bawlin oo ahaa mas'uulka ardayda oo hooyga degan ayaa nala kulmay wuxuu noo sheegay inuu si ulkac ah hal qol noogu dejiyay wuxuuna na siiyay buugtii aan wax ku baran lahayn wiil wuxuu sheegay inuusan cuni karin wax kasta oo afakaadho ku jiro ugu dambeyn Mr Bawlin wuxuu nagu amray inaan isgacan siino si saaxiibtinimadeena u bilaabato habeenkaas wiil si degan ayuu u seexday anaguna si tartiib ayaan u qaatay telefoonkiisa waxaan isticmaalay fartiisa si aan u furo waxaan ku sigtay inaan fariin u diro hooyaday laakiin si lama filaan ah ayuu wiil hurdada ugu toosay la soco Part 2